hooyada wax ugu dhib badan ama murugo badan ma leh markay caruurteeda xanuunsan yihiin. maanta waxaan idiin hayaa macluumaad yar oo ah fiideo ka mid ah faa'iidooyinka basashu ay leedahay. sideen u jebinaynaa hadday caruurteena hayso qandho zaa'id ah adigoon daaweyn u isticmaalin. mowduucan hadduu ku soo gaaro u sheergaray eheladaada iyo asxaabtaada si ay uga faa'iidaystaan. ogowna haddaad khayrka sheegto waa adigoo khayrka sameeyo kale. waxaa jiray nin ka sheekeeyey qisadiisa markuu yaraa isaga oo dhakhtarka jiifo u dhaxeeya nolol iyo geeri, ka cabanayo qandho xad dhaaf ah oo aan caadi ahayn. waxaa booqasho ugu timid ayeeyadiisa iyada oo ka naxsan dhibka wiilkeeda haya. qof familka ka mid ah ayay waxay ka codsatay markuu imaanayo inuu horay ugu keeno hal xabo basal oo weyn iyo sigsaan caddaan ah. markii loo keenay ayay googoysay basashii oo waxay u saartay lug walba cagta hoosteeda oo ay sigsaantii u gelisay. aroortii markii uu soo toosay waxay ka saartay sigsaanadii, laakiin basashii waxay isu beddeshay madow oo qandhadiina way ka jabtay. subxaan allah. intaana waa iga macluumaad aan jeclaystay inaad ila kaashataan. ma dareemaysaa daal? waxaad cabtaa koob casiir orange oo fresh ah. ma ku dhibtaa xasaasiyadda ama enerjig? waxaad cuntaa ananaaska. ma dareemaysaa lafa xanuun? waxaad cuntaa sisinta. ma og tahay ku qabaysashada biyaha roobka wuxuu buriyaa sixirka, jiniga iyo isha? subxaan allah. taasi waxaa daliil u ah aayadan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ka bakhaylin inaad gaarsiiso asxaabtaada iyo ehelkaaga. waxaa laga yaabaa in qof uu u baahan yahay macluumaadkaas. waxaan rajaynaynaa inuu idin qanciyo fiidiyowgan yar oo aadna ka faa'iidaysataan. waa anigoo idin leh ismaqal dambe oo xiisa leh. اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.